runtii waa baarigaya waa soo dhaweynaya waa arrin aad iyo aad u fiican maartay arrinta dhalinyarada oo digital age baa la maraya maanta waxqabadka dunida oo ganacsigu ku jiro oo amnigu ku jiro oo waxbarashadu ku jiro caafimaadku ku jiro oo nolosha aadamaha dhan ay maartay ku jirto ayaa digital ku sii socda in qofku xafiis fadhiyo oo paperwork ku shaqeeyo waa laga sii guurayaa ganacsiga dunidu in bakhaar la furto oo qofku bakhaar intuu furto alaab ka buuxiyo waa laga sii gudbayaa marka runtii waa ugu mahad celinaya dhalinyaradu laftigoodu inay doorashooyinkii qaabkii loo geli lahaa iyo qaabka dadka loo barayo inay maartay aad barnaamij kaabaya oo magac fiican loo bixiyo doorasho kaab inoo soo bandhigeen waa uga mahad celinaya waxaan kaloo maartay aad waxa uga sheekeeyay Cabdiraxmaan Habarwa xisbiyahan buu ahaa raggii asxaabta xisbiyahan muddo ka soo shaqeeyay buu ahaa golaha wasiirada marka la joogana arrinta shuruuci waana loo yar weeyaan marka arrimaha doorashada marka golayaasha dawladda la joogo maartay ragga aad uga doodo ku jira xeerarkan oo hadda ka sheekeeyay aad uga shaqeeyay hadda waxa la geenayaa golaha baarlamaanka la geeyay waxa la idinka rabaa inaad doodaha aad muxuu baarlamaanku ka doodayaan inaad ka qayb gashaan oo gacanta taagtaan oo cabashada u gudbisaan waxa idin la tahay in lagu kornin karo oo golaha wasiirada uu ka soo gudbay baarlamaanku hor yaala dadweynuhuna ka qayb galkooda leeyihiin iyo ogaanshahooda xisbiyada uu soo maray guddiga doorashada waa soo maray kaalintii ugu dambeysay hadda marayaayo wixii aynu markii hore u aragnay inay ka dhinaayeen oo dhan golay intaas oo gole lagaga soo dooday siminaar lagu soo qabtay degmooyinka iyo gobolada lagu soo qabtay golaha guddigii doorashada la soo mariyay xisbiyada la soo mariyay golaha wasiirada la keenay baarlamaanka aaday hadda oo insha Allah uu noqon doono xeerarka iyo shuruucda ugu dambaysa oo aynu doorasho ku geli doono haddii alla idinka dhigo wax badan kaga noqon maayo wasiir Habarwaaba aad uga sheekeeyay arrintan maartay digitalka ah oo doorasho kaab waxaan rajaynayaa inaad ku darsataan khaanad hadda idinka maqan oo ah qofku online inuu ku codayn karo inuu online ku codayn karo maartay dad fara badan oo aan malaayiin baa dibadda inaga maqan oo dadka waddanka maalgelinta ka sameeya kamida manpowerka dalka kamida ganacsi ku leh aanay u saamaxayn xilliga doorashada la joogo inuu joogo oo shaqooyin kale ama ganacsi kale haya oo dibadda ah markaasay u maartay doorasho uga qayb galaan waxaa la rabaa xilli hore inaad u diyaar garowdaan oo aad u samaysaan system ay ku codayn karaan guddigii doorashada kala tashataan golayaasha dawladdu idinla ansixiyo ama qofku inuu yimaado oo isdiiwaan geliyo hadhowna ay u fududaato inuu isdiiwaan geliyo ama nidaam digital maartay inuu xitaa sawirkiisa ku qaadi karo midna anigu markaan doonayo inaan maartay dadka dibadda maartay baasaboorada ku leeyahay hadiiba baasaboorkoodu lumo ama baasaboorkoodu dhaco muxuu ahaay markay baasaboor codsanayaan ama maartay kuma khasbana inay tagaan xafiis kuma khasbana in immigration dalka u dhoofaan waxa lagu furayaa application baa lagu furayaa soo gal baa lagu leeyahay buuxi baa lagu leeyahay formka waad buuxisay sawirkaaga load garee baa sawirkaaga saar halkaas sidii nidaamka hadda aad nagu sharaxaysan oo kale sawirkaaga baad saaraysaa muxuu ahaayay waxa lagu leeyahay kamera lagu furayaa sawirka indhahaaga la qaadayaa waa la garanayaa marka qofka tahay waa la garanayaa cidna ma khaldi kartid waad hormarin kartaa nidaamkaas oo kale waad samayn kartaan xilli hore xisbiyada iyo baarlamaanka iyo dawladda waad u soo bandhigi kartaan markaa